hooyadii ayuu geeyey meelaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo kadib markii ay carruurtiisa iyo xaaskiisu u dulqaadan waayeen hooyada ee waayeelnimada bukaannimada u dheer tahay daryeelka badanna u baahan maadaama uu ahaa nin shaqada iyo qoyskiisa ku mashquulsan waxa uu hooyadii booqan jiray 3 biloodba hal mar muddo yarna waa uu la joogi jiray maalin maalmaha ka mid ah ayaa laga soo wacay xaruntii xanaanada waxaana loo sheegay inay hooyadii geeri qarka u saaran tahay waxaana lagu yiri ka soo gaar aad aragtid hooyada inta aysan go'in markii uu goobtii yimid ayuu hooyadii oo ay naftu qadqaadayso weydiiyey hooyo maxaan kuu qabtaa hooyadii oo indhaha la raacaysa wiilkeeda ayaa tiri waxa aan jeclaan lahaa inaad marawaxdo ku soo xirtid xerada sababtoo ah ma laha marawaxdo waana kulal xilliyada qaar waxaa kale oo aad keentaa talaagado qaboojiyayaala ama wax cuntada kaydiya hooyo in badan ayaan baahi ku seexday intaan waayey waxaan cuno wiilkii oo yaaban ayaa weydiiyey hooyo maxaad arrintan mar hore iigu sheegi weyday hadda maxay kuu taraysaa hooyadii oo xanuunka geerida u dheer tahay murugo ayaa tiri hooyo anigu waan la qabsaday kuleylka iyo gaajada waxaanse ka baqayaa inaad adigu la qabsan weydid marka aad weynaato ee ay ubadkaagu halkan ku keenaan